waxa ay ahayd boqortooyo Soomaaliyeed oo ka talin jirtay Geeska Afrika ilaa iyo Koonfurta Afrika. Waxa uu xukunkeedu gaarsiisnaa qaybo ka mid ah dalalka Kenya iyo Itoobiya, waxayna awoodda boqortooyadan u tallowday deegaanka Sofala oo ka tirsan dalka Mozambique ee Koonfurta Afrika. waxayna sidoo kale nidaam boqortooyo ka samaysay jasiiradda Maldives. boqortooyo bandhig u ahayd xiriirkii diblomaasiyadeed ee ugu horreeyay ee Afrika ay la yeeshaan Shiinaha. boqortooyadii lahayd ciidankii militariga ee awoodda badnaa, kaasoo cagta mariyay Boortaqiiskii doonayay inay la wareegaan dhulka Soomaaliyeed. boqortooyo lahayd calan u gaar ah, ciidan cudud leh iyo nidaam buuxa oo dowladeed oo ka hana qaada geyiga Soomaalida. waxaa laga yaabaa in badankiin aad maqasheen magaca boqortooyadan. waa boqortooyadii Ajuuraan. laakiin su'aashu waxa ay tahay, sidee ayay ku bilaabatay boqortooyadan, maxaana sababay hoos u dhaceedii? waxaan ku faahfaahin doonaa muuqaalkan. haddaba si aad u ogaato soo ifbixii iyo hoos u dhicii boqortooyadii Ajuuraan, fadlan nala joog ilaa dhammaadka. marka laga hadlayo taariikhda dowladnimada Soomaaliya, boqortooyadii Ajuuraan waxaa lagu tiriyaa dowladihii ugu awoodda badnaa uguna nidaamsanaa ee ka hana qaaday Geeska Afrika xilligii dhexe. cilmi baarayaasha taariikhda Soomaaliyeed waxay Ajuuraan ku tilmaamaan dowlad Soomaaliyeed oo Islaami ah oo ku guuleysatay inay dhisto maamul dhexe, dhaqaale xooggan iyo nidaam siyaasadeed muddo qarniyo ah, kaasoo xasilooni ka hirgeliyay Koonfurta Soomaaliya. inkasta oo maanta magaca Ajuuraan uu caan ka yahay taariikhda Soomaaliya, haddana fahamka saxda ah ee sida ay boqortooyadu ku dhalatay iyo sababihii horseeday awooddeeda wuxuu u baahan yahay in dib loogu noqdo xaaladii Soomaaliya ka jirtay qarniyadii ka horreeyay soo bixitaankeedii. qarnigii 10aad ilaa qarnigii 12aad, dhulka Soomaaliya wuxuu ahaa meel ay ka jireen magaalooyin ganacsi oo si weyn ugu xirmay dunida Islaamka. magaalooyinka xeebaha ah sida Muqdisho, Marka iyo Baraawe waxay xiriiro ganacsi la lahaayeen jasiiradda Carabta, Bershiya, Indiya iyo Bariga Afrika. ganacsiga dhanka badda waxa uu ahaa laf-dhabarta dhaqaalaha magaalooyinkan. waxaa laga dhoofin jiray xoolaha nool, haragga ama maqaarka, fooxa, malmalka, qoryaha udgoonka leh, alaabaha beeraha iyo foolmaroodiga. beddelkeedna waxaa laga soo dejin jiray dhar tayo sare leh, biraha, hubka, dhoobada la farsameeyey iyo alaabooyin kale oo qiimo lahaa. inta badan magaalooyinkaasi waxay lahaayeen maamullo u gaar ah, mid kastana waxaa hogaamin jiray suldaan ama gole ganacsato ah oo ilaalin jiray amniga magaalada iyo ganacsigeeda. hase yeeshee ma jirin dowlad midaysan oo maamusha dhammaan Koonfurta Soomaaliya. gudaha dalka, gaar ahaan dooxooyinka webiyada Shabeelle iyo Jubba, waxaa ku noolaa bulshooyin beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jira. labada webi waxay ahaayeen ilaha ugu muhiimsan ee biyaha iyo beeraha, waxaana ku tiirsanaa nolosha kumanaan qof. beeraha laga beeri jiray dhulkaas waxay soo saari jireen dalagyo kala duwan sida masagada, galleyda, sisinta, digirta iyo dalagyo kale oo muhiim u ahaa dhaqaalaha. isku darka beeraha hodanka ah, ganacsiga xeebaha iyo faafitaanka diinta Islaamka ayaa abuuray jawi ku habboon dhalashada dowlad awood leh oo midaysa gobolladaas. qarnigii 13aad iyo bilowgii qarnigii 14aad waxaa soo baxay baahi loo qabo dowlad midaysa dhulka beeraha leh iyo magaalooyinka xeebaha. ganacsiga sii kobcayay wuxuu u baahnaa wadooyin ammaan ah, halka beeraleyduna u baahnayd nidaam maamula biyaha iyo waraabka. boqortooyadu waxa ay ka dhalatay baahidaas siyaasadeed iyo dhaqaale, waxayna ahayd dowlad ka hana qaaday gudaha bulshada Soomaaliyeed, iyadoo si tartiib tartiib ah u midaysay deegaano kala duwan oo markii hore kala madax bannaanaa. cilmi baarisyada casriga ahi ma sheegaan sanad sax ah oo boqortooyada la aasaasay, balse badankoodu waxay isku raacsan yihiin inay xoog yeelatay qarnigii 13aad, awooddeeduna si weyn u korortay qarnigii 14aad. asalka magaca Ajuuraan waxaa ka jira aragtiyo kala duwan. qoraallada taariikhiga ahi ma bixiyaan hal fasiraad oo lagu wada heshiiyey. sidaa darteed, taariikhyahanadu badankoodu waxay isku raacsan yihiin magaca inuu ahaa magaca boqortooyada ama qoyska boqortooyada, balse ma jiraan caddaymo taariikheed oo qeexaya halka uu magacaasi asal ahaan ka yimid. balse marka magaca laf ahaantiisa la micneeyo, waa erey af Carabi ah oo ka dhigan ijaar ama ujra, taa oo ka dhigan lacagta ay ka qaadi jireen dadka xoolo dhaqatada ah ama beeraleyda ah. Ajuuraan waxa ay ahayd boqortooyo Soomaaliyeed kana dhalatay deegaan Soomaaliyeed. dowladda ay dhiseenna waxay ka talinaysay dhul ay deganaayeen bulshooyin Soomaaliyeed, waxaana dhaqanka, afka iyo diinta ay ku dhisneed ahaayeen kuwa Soomaaliyeed oo Islaami ah. hase yeeshee, marka laga hadlayo qoyska boqortooyada laftiisa, ma jiraan qoraallo taariikheed oo la isku waafaqsan yahay oo si cad u qeexaya abtirsiinta boqorradii Ajuuraan. waxaase jira dhaqamo afeed iyo sheekooyin soo jireen ah oo sheegaya nasabyo kala duwan, laakiin ma aha caddayn ku filan in lagu xaqiijiyo asal gaar ah.
kadib markii ay samaysanteen dowladdii Ajuuraan, hogaamiyeyaasheedu waxay bilaabeen inay si tartiib tartiiba u mideeyaan deegaanada ku tirsan webiyada. Tallaabada ugu horreysay waxay ahayd in la xaqiijiyo amniga waddooyinka isku xira beeraha iyo magaalooyinka xeebaha. Tani waxay muhiim u ahayd ganacsiga, maadaama badeecooyinka gudaha dalka laga soo saari jiray loo gudbin jiray dekedaha si dibadda loogu dhoofiyo. Markii amniga la xaqiijiyey, dowladdu waxay bilowday inay maamusho canshuuraha iyo ilaha biyaha. Tanina waxay sare u qaaday dakhliga dowladda, waxayna siisay awood ay ku maalgeliso ciidankeeda iyo maamulka gobolladeeda. Awoodda Ajuuraan kuma iman hal dagaal ama hal boqor oo kaliya, balse waxay ahayd geedi socod muddo dheer socday, iyadoo dowladdu si tartiib ah u xoojinaysay maamulka gobollada kala duwan. Mid ka mid ah sababihii ugu waaweynaa ee Ajuuraan u noqotay dowlad xooggan waxay ahayd inay gacanta ku dhigtay dooxooyinka labada webi ee Shabeelle iyo Jubba. Labadan webi waxay ahaayeen ilaha ugu muhiimsan ee biyaha joogtada ah ee koonfurta Soomaaliya. Beeraha ku yaala hareerahooda ayaana soo saari jiray dalagyo badan, kuwa uu quudin jiray bulshada, isla markaana dakhli u soo gelin jiray dowladda. Taasi waxa ay muujinaysaa in boqortooyadu fahantay in cidda maamusha biyaha ay maamusho dhaqaalaha, sidaas darteedna maamulka biyaha iyo waraabka wuxuu noqday tiirka ugu muhiimsan ee awoodda Ajuuraan. Asaaska maamulka Ajuuraan wuxuu ku dhisnaa shareecada Islaamka, sida dowlado badan oo Islaami ah oo xilligaas jiray. Shareecada Islaamku waxay ahayd tiirka ugu muhiimsan ee sharciyeynta maamulka. Garsoorayaal iyo culimo waaweyn ayaana door weyn ku lahaa xalinta muranada bulshada, arrimaha la xiriira ganacsiga, hantida, qoyska iyo heshiisyada, waxaana lagu maamuli jiray xeerar ku salaysan diinta Islaamka. Masaajido iyo xarumo waxbarasho ayaa sidoo kale ka jiray magaalooyinka waaweyn, taasoo muujinaysa in Ajuuraan aysan ahayn oo keliya awood siyaasadeed iyo dhaqaale, balse ay ahayd xarun diimeed oo muhiim ahayd. Si ay u ilaaliso dhul ballaaran iyo ganacsi muhiim ah, boqortooyadu waxay lahayd ciidan awood leh. Ciidanku wuxuu lahaa dhowr shaqo oo kala ahaa: difaaca dhulka boqortooyada, ilaalinta waddooyinka ganacsiga, xakamaynta kacdoonnada iyo difaaca magaalooyinka muhiimka ah. Awoodda ciidanku waxay ahayd mid muhiimad gaar ah leh, gaar ahaan markii ay soo baxeen khataro dibadda ah. Boqortooyadu ma aysan ahayn dowlad ku tiirsan magaalooyinka xeebaha oo keliya, sidoo kale waxay awood u lahayd inay gudaha dalka ku leedahay maamullo iyo ciidan shaqaynaya. Markii qaaradda Yurub ay bilowday inay raadiso waddooyin ganacsi oo muhiim ah kadib qarnigii 15aad, badweynta Hindiya waxay noqotay goob tartan oo caalami ah. Boortaqiisku wuxuu bilaabay inuu isku dayo inuu xakameeyo ganacsiga badda, gaar ahaan waddada u dhaxaysa Yurub iyo Indiya. Tani waxay keentay in boqortooyooyinkii Bariga Afrika ay wajahaan cadaadis cusub. Boqortooyadii Ajuuraan waxa ay ka mid ahayd dowladihii iska caabiyey faragelintaas, taasoo muujisay awooddeeda siyaasadeed iyo tan ciidan. Qarnigii 16aad, boqortooyada Ajuuraan waxay gaartay heerkii ugu sarreeyay ee awooddeeda, iyadoo maamuleysay dhul ballaaran oo ku teedsan webiyada Shabeelle iyo Jubba, isla markaana saameyn xooggan ku lahayd magaalo xeebeedyada caanka ku ahaa ganacsiga. Xilligaas dunida waxaa ka dhacay isbeddel weyn, kadib markii badmaaxihii reer Boortaqiis ee Vasco da Gama uu sanadkii 1498 gaaray badweynta Hindiya, taas oo furtay tartan cusub oo u dhexeeyay quwadaha Yurub iyo dowladihii horey uga talin jiray ganacsiga badda. Boortaqiisku wuxuu doonayay inuu gacanta ku dhigo marinadii ganacsiga ee Bariga Afrika, waxaana uu weeraro ku qaaday magaalooyin badan oo xeebaha ku yaalay. Inkastoo xeebaha Soomaaliya ay sidoo kale la kulmeen cadaadis iyo iska horimaadyo, boqortooyadii Ajuuraan waxay awood u yeelatay inay difaacdo madaxbannaanideeda, mana uusan Boortaqiisku dhisan maamullo joogto ah oo ka hana qaada dhulkii ay maamuli jirtay boqortooyadu. Inkastoo ay ku guuleysatay inay iska difaacdo cadaadiska dibadda, boqortooyadu waxay bilowday inay wajahdo dhibaatooyin gudaha ah. Maamulidda dhul ballaaran waxay u baahnayd dhaqaale iyo ciidan badan, waxaana soo baxay khilaafaad u dhexeeyay dowladda dhexe iyo hogaamiyeyaasha gobollada. Sidoo kale, muranno la xiriiray canshuuraha iyo maamulka ayaa sababay in gobollo qaarkood ay bilaabaan inay ka madax bannaanaadaan dowladda dhexe. Dhinaca kale, isbeddelladii ku yimid ganacsiga badweynta Hindiya kadib soo bixitaankii Boortaqiiska waxay saameeyeen dakhliga dekedaha iyo awooddii dhaqaale ee boqortooyada. Isku darka dhibaatooyinkan ayaana horseeday in awooddii dowladda dhexe ay si tartiib tartiib ah u daciifto. Qarnigii 17aad, Ajuuraan waxay lumisay awooddii ay ku maamuli jirtay gobolladii kala duwanaa, waxaana meesha ka baxay maamulkii midaysnaa ee ay muddo qarniyo ah dhistay. Halkii ay ka jiri lahayd hal dowlad oo xooggan, waxaa soo baxay saldannado iyo maamullo Soomaaliyeed oo cusub, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen saldanadii Galladii. Boqortooyadii Ajuuraan waxaa guud ahaan la aaminsan yahay inay burburtay qiyaastii dabayaaqadii qarnigii 17aad,
gaar ahaan sanadkii 1698. Inkastoo boqortooyadu burburtay, haddana nidaamkii waraabka, horumarinta beeraha, ganacsigii magaalooyinka Banaadir iyo doorkii ay ku lahayd faafinta maamulka Islaamiga ah waxay sii yeesheen saameyn muuqata oo ka dhex muuqata taariikhda Soomaalida. Taariikhyahanadu waxay boqortooyadii Ajuuraan u aqoonsan yihiin mid ka mid ah dowladihii ugu horumarsanaa ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika xilligii dhexe, taasoo caddayn u ah in Soomaaliya ay lahayd boqortooyo guun ahayd, taa oo lahayd maamul, dhaqaale iyo ciidan xooggan qarniyo badan ka hor xilligii gumaysiga. Waxaana halkaas ku eg taariikhda boqortooyadii Soomaaliyeed ee ka talin jirtay Bariga iyo Koonfurta Afrika.